gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Maxamuud Jaamac ayaa deeq isugu jirta raashin dhar iyo lacag gudoonsiisay qaar ka mid ah qoysas danyar ah oo ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Deeqda ayaa waxaa gudoomiye Jawaahir u soo wakiishay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Ohio. Qaar ka mid ah dadka deeqda la gudoonsiiyay oo la hadlay idaacadda codka gobolka Banaadir ayaa ka mahad celiyay deeqda maanta la gudoonsiiyay. gobolka Banaadir oo inoo joogto maama Jawaahir baarqab Allah noo daay cimrigeeda Allah noo dheereeyo. hadda wallahi deeq alxamdulillah lacag oo dollar oo naqan iyo raashin dhar anaga naga fara badan iyo alxamdulillah mabano soo marin fursad noocan ay wiligeyn ku mahadsantiin hadiida noo soo dhiibteen si fiican oo la qaabilsiiyay maama Jawaahir iyo wixii la halmaala oo ku mahadsantiin Ramadaan al-Kariim cudurkan Allah dadka qaado oo idin soo duceeyna caafimaad khayr barwaaqo bashbash Ilaahay idinkaga tuugayna. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Maxamuud Jaamac oo ka hadashay deeqda lana hadashay idaacadda codka gobolka Banaadir ayaa u mahad celisay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Ohio ee dalka Mareykanka soo dhiibista deeqdan waxayna sheegtay in deeqda ay ka faa'iideysteen dadkii mudnaa. runtii waxaan ku faraxsanahay dabcan in ay Soomaalinimada wili shaqaynayso dadka Soomaaliyeed dhibaato walba haday dhacday wili waa isku gurmanaynaa. barnaamijkan waxaa suurtageliyay dhalinyaro Soomaaliyeed iyo jaaliyadda reer Ohio oo wadanka Mareykanka oo laba qaybood ah. runtii waxaan rajaynayaa ugana mahad celinayaa dadaalkooda dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan Cumraan iyo tiimkiisa canab iyo tiimkeeda dhammaan jaaliyadda Ohio ayaan si gaar uga mahad celinayaa. magacyadooda dibaan ka soo sheegi doonaa. Ilaahay ma hadda iska leh waa u jeedaan waxaa ka faa'iideystay dad danyar ah kuwa ugu mudnaa. waa dareemi kartaan hooyo aan waxba arkaynin aragga naafaka ah lugaha naafaka ah haddana agoon haysata hooyo waayeela oo 90 jir ah oo waligeed aan maaragtay waxba haysanin aabe ilmo rajaa haysta siday u aradan yihiin waad u jeedaan gabdho danyar ah oo aan dab ka shidanaynin. dadka inta badan waxay fokus gareeyaan barakacayaasha laakiin waxaa jira kuwa la mid ah ama ka liita kuwa barakacayaasha way barakacayaasha inta badan beesha caalamka iyo hay'adaha iyo deeq-bixiyaasha ayaa waxay tilmaamaan baahiyahooda laakiin waxaa jira kuwa guryaha ku jira oo aamusan oo aan waxba haysanin. waxaana leeyahay inta dadka Soomaaliyeed damiir kale oo nool waxaan ka codsanaynaa bishii barakaysnayd ee Ramadaan oo ah bil maaragtay ummadda muxsiniinta ay wax istaraan. waxaan aaminsanahay waxa kale oo ka faa'iideystay xarunta agoonta ka dara dictor ka daro asagana aan raashin siinay ilaa iyo 30 qoys ayaa maaragtay ka faa'iideystay oo min $50 aan siinay. $2,000 ayay ii soo direen jaaliyadda. waxaan ugu talagalay marka inaan bulshada qaybaheeda kala duwan haday rag noqoto iyo haday dumar noqotoba baahida aabaha caruurta haysto waa asaga laftirkiisa waa u jeedaan wuxuu ku dhow yahay xarunta aqalka dawladda hoose ciidanka xarunta wax siiya hooyadoodu way ka dhimatay 2 wiil iyo gabar waaye miis xamar weyne ku yaala ayaa wax $1 ka yar oo dacas uu ku iibiyaa. qof walba xogtiisa waa raadiyay waan soo helay xataa magaciisa ma garanayo aniga laakiin nasiib wanaag waa la ii keenay asaga iyo nool wuu hadlayaa waa wareysateena u malaynayaa. waxaan uga mahad celinayaa ciidanka ilaalada ay xarunta dawladda hoose oo gacanta ku hayaan qada iyo quraac iyo casho siinayay. bisha Ramadaana la gaaro waad u jeedaan gabadha yar way cagacadahay dacas ma haysato waa hooyadood way dhimatay. waxaa laga yaabaa caruurteena marka inaan birmo iyo sugunta iyo teers annaga aan siino. waxaa laga yaabaa ilmahaaga sariir qurux badan inaad u gogasho. waxaa laga yaabaa ilmahaaga hooyo waxaan ma cunaay markay ku dhahaan inay joyce haystaan oo aad ka bedelaysid. waxaa laga yaabaa ilmahaaga inay haday jiradaan aad dawo geey karto laakiin markaad ooridii aad jeclayd weyso caruurtana kaliga ay kugu noqdaan waa dareemi kartaa cid ka reebaysan ay jirinin. si gaar ah maaragtay aan Cabdisalaan iyo Shaati iyo Cabdullaahi Geediya uga mahad celinaya iyo Cabdullaahi taliyaha maaragtay xigeenka asagana xaruntan ayaga gacanta ku hayo.